Bismillah, sababta aad baan salaamaya. And welcome to my channel, Realistic Trader. And maanta waxaan sameeyay asxaabta saa u jeedaan 5 trade ayaan galay. 5 trade-na waxaa weeyaan waa ku wada guuleystay anigoo markaa isticmaalaya candle psychology oo aan ku trade gareynayo. Marka asxaabta waxaan sheegi doonaa every trade iyo sababta aan ugu guuleystay ayaan insha Allah idin la wadaagi doonaa. The first trade maanta taariikhdu waxay tahay waa 3 May. saacadda xilligan hadda aan trade gareyna waa 10:00 iyo badh 4 galabnimo weeyaan. The first trade marka aan trade garey waa kana waxaan samaystay strong level. suuqan wuxuu ahaa downtrend. This level levelka u jeedaan ayaan samaystay is a level buy sellers also sellers ayaa halkaa kasoo galay also sellers candle ayaa halkaa kasoo galay. So waxaa weeyaan waa strong key level. sida awgeed waxaan markaa arkay markuu levelkii halka uu joogo halkan candle-kana aan ku arkay rejection of sellers level una yahay waxaan halkaa kasoo galay suuqii sell waana ku faa'iiday. 2 mar baan galay, marka koowaadna halkaasaan ka galay, marka labaadna halkaasaan kasoo galay anoo og in suuqa markaa candle-kan uu noqon doono candle sell ah maadaama uu level halkaa uu joogo. waana ku guuleystay. Next trade asxaabta suuq labaad aan galay waa isagana waan ku guuleystay. sababta aan ugu guuleystay waxaa weeyaan waxaa weeyaan suuqan waa ujeedaan waa major uptrend no waa major downtrend suuqan waa suuq downtrend ah. So halkan waxaan dhigtay ujeedaan level this is a level halkaas ayaan level dhigtay. So maadaama suuqu yahay markaa suuq downtrend ah halkan ayaan ka galay suuqii sell. sababtan suuqa sell oo gala waxaa weeyaan previous candle next candle-ka ka horeeya iyo kanba waxaa ugu jeednaa rejection ayaa halkan nooga muuqda. So waxaan u siraacnay suuqii markaa sell. This candle-kii ka horeeyana wuxuu ku dhamaaday week oo sell ah oo rejection soo sameeyay xoog badan. suuqina waxaan u siraacay markaa sell waana ku faa'iiday. trade-ka saddexaad isagana suuqa waxaa ujeedaan waa downtrend major downtrend. This halkan level ayaan dhigtay is a level buyers area. So halkan waxaan u jeednaa previous candle-ka in suuqan uu yahay candle oo bearish ah. sa u jeedno strong bearish iyo rejection aad u xoog badan, sidoo kale sells bearish, sidoo kale candle bearish ah. halkan marka waxaa noo galay candle buyers ah ayaa noo dhashay. So suuqan ana og marka in uu magaranaysaa bearish uu bullish uu noqonayo, haddana waxaan halkaas kor kasoo galay sell san ana og inuu suuqa marka uu sameynayo candle-kan sameynayo rejection maadaama strong bearish momentum ay ka horeeyaan. wuxuu sameeyay halkaas suuqa rejectionkaasaan ka faa'iidaystay aan ku faa'iiday. laakiin candle-kan wuxuu ku dhamaanayay ama uu ku dhamaaday saa ujeedaan bullish candle bullish ayuu ku dhamaaday.
laakiin waxaan ka faa'iidaystay rejection-kaas. Haddii kale waan ku khasaari lahaa entry point-ii hore halkaasaan ka galay waana ku khasaari lahaa, laakiin kor ayaan kasoo galay anigoo ka faa'iidaysanaya rejection-ka uu sameynayo candle-kan maadaama bearish momentum candle halkan previous candle-ka uu ka xigo. Trade-ka afaraad isagana waan ku guuleystay. Sababta asxaabta aan ugu guuleystay waxaa weeyaan saa u jeedaan suuqan waxaa weeyaan waa major uptrend. Waa major uptrend. Halkaas waxaan ka samaystay level, strong level ayaan ka samaystay. Is a level, also level, strong level weeyaan. So halkana suuqan wuxuu ka ahaa downtrend. Candleskan u jeedaan waxaa weeyaan waa weak bullish. Sidoo kale candle bullish ayaa soo galay mar kale. Sidoo kale this candle waxaa loo yaqaanaa spinny top candle waana reversal sign. Candlada sameeya reversal sign wuxuuna joogaa at the area of strong level ayaan ka helay. Suuqii waxaan u galay marka sell waana ku faa'iiday. Trade-ka ugu dambeeyay aan galay isagana waxaa weeyaan saa u jeedaan suuqa halka majorkiisa waxaa weeyaan waa downtrend, minorkiisana waxaa weeyaan waa uptrend. So waxaan dhigtay is level inkastoo uu lahayn strong level, waa weak level. So maadaama halkan uu ka yahay minorkiisa uu suuqa yahay uptrend, halkana u jeedaan bullish momentum, halka labadan candlena uu saleska uu suuqi uu ka dhigtay retracement uu ku nastay. Haddana waxaa bilowday bullish candle. So levelka u jeedaan candleka uu dhaafay. So waxaan usii raacay buy anoo og inuu suuqan noqonayo candlekan ku dhamaan doono bullish waana ku faa'iiday. Asxaabta haddaad ka hesheen videoska aan soo dhigo YouTube-ka, please subscribe, share, like and comment. Mar walbana video badan ayaan soo dhigi doonaa oo idinkaga faa'iidi doono, aniga iyo idinkaba aynu ka wada faa'iidi doono sida loogu trade gareeyo candle psychology. Runtii candle psychology-ga waxaa weeyaan waa runtii mid aad u adag haddana sina u fudud, laakiin wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo good analyze inaad sameyso. haddaa waqti badan iyo practice badan iyo analyse-kaaga uu wacnaado probability u badanna ee suuqa win ratio-gaagu noqdo 80 ama 90%, waxaad bilaabi kartaa account. laakiin waxaa ka horeysa intaas oo dhan shuruudaha inaad soo bixiso, inaad suuqii waqti badan geliso, practice badan sameyso, analyse-kaagu sax noqdo, win ratio-gaagana uu 80% ama 90% noqdo. insha allahu asxaabta dhammaan waa idin salaamaya. subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta ama wanaanina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.